kalamaanay war ma haysiine waxaa caddaatay madaxweyne farmaajo inuu yahay siyaasi rugcadaaya oo nin siyaasad ku gaaraa uusan ka jirin geeska afrika waraabiye axmed xataa ma ka dheeray waraabiye iska daaye taalihiisa siduu noo sheegaya ninkaanu ismaaciil cumar gello 30 jirsaday buu maxaa ka dheereeyey taalooyinkii berisamaadkii luwaaya hataa naga lijeedana siyaasadiis noolow farmaajo ka dhiman bis warwarka waa la dawaafteene annagu si cilmiya waxaa idinkugu sheegaynaa ina dhegaysta madaxweyne farmaajo tusaale waxaa idinkugu filan inuu siyaasi rugcadaaya yahay shirkii dhuusamareeb kow madaxda maamul goboleedyadu intay isu yimaadiin ee heshiis gaareen dhexdooda markaasay dawladda dhexe u baaqeen oo yidhaahaan noo timaaddo iyagoo midaysan kadibna madaxweyne farmaajo waa u tegey dhuusamareeb tuu dhex fadhiistay kadibna siyaasad laydhaha raasha wabaash ayuu isticmaalay heshiisna waa la gaaray kadib markuu soo laabtana waa ka wixii dhammaa maca ra'iisul wasaarihii oo ku fakar noqday nimankaas rigoore ka dhaliyey kadibna dhuusamareeb 3 waa kii tegey 3 nin oo ka mida 5tiiba heshiis kula soo gaaray iyo gudoomiye Cumar Finish oo 4 uga dhigtay waa kii dhuusamareeb 3 heshiis kula soo gaaray labadii kalena waa ka hadda inta gaar u wacdo Muqdisho ku casuumay la filayo hadda inuu heshiis la gaari doono marka inuu siyaasi yahay waxa idin cadaynaysa 5 nin oo u midowda dhuusamareeb kow iyo ra'iisul wasaare iyaga fikradda ku raacay siduu u kala fariinsaday ee kooxda meel ugu la soo heshiiyey war ninku inuu nin khatar yahay barigii jawaari baan ogaaday anugu war naftay madaxweyne farmaajo oo siyaasi khatar may ka ogaaday markii aaw shariif baloonigu ka hoos gaadi arooda aniga farmaajo in isqatar yahay waxa ii cadaatay iyaalkii taabid ahaatoo ku dhigay war madaxweyne farmaajo inuu siyaasi khatar yahay waxaan ku ogaaday markuu xaaf qaraabku u diiday war anigu siyaasadda madaxweynaha waxaan ku ogaaday cusubla sidii looga qaaday hirshabeelle aryaadaha Soomaalidu waxay tiraa meed xaa u dambeeya kan hadda la sii sido muga wax hore xad ula yaabaysay waaba ogtiin sida ra'iisul wasaare khayr siyaasadda ugu afgambiyay war aniga waxay leeridii siyaasadeed ee madaxweyne farmaajo waxaan ku ogaaday sidoo ugu adkeeyay Uhuru Kenyatta war siyaasadda madaxweyne farmaajo inay xataa geeska Afrika dhaaftay waxaan ku ogaaday Nicholas Haysomta ku dhigay warnami oo sameeyay walan ka fiiriyana wal ka fiiriyaasan ana meel kale wal hayeen ka muuqdeen gudoomiyii la kalsoonay meeday mursalahay usnaftiis ba amna amta lay kirooga qaba war siyaasadda madaxweynaha khatarnimadeeda waxaan ku ogaaday waa kii damcay Hargeysa in roog cas loo dhigo shuruud la'aan Muuse Biixina garoonka u sii istaago war siyaasadda madaxweyne farmaajo inay khatartay waxaan ku ogaaday macallin Maxamuud iyo Dr. Shaakir uu qorbijo ka dhigay aryaadaha madaxweynaha siyaasadiisa inaan la gaari karin waxaan ku ogaaday mugow madaxweynayaasha ka horeeyay yiri hawada ku kala wareega war madaxweyne farmaajo inuu siyaasiya waxa cadeyn u ah cabaadka ka dhacay Cabdiraxmaan Cabdishakuur horta aqalkii sare iyo gudoomiyihiisi Cabdi Xaanshi xaggay ku dambeeyeen mabuudka kala tuntayne ilaa waa siyaasi weyne aryaadaha xaadis u daalihaysid arki Afrikow iftiinka daaran kii abaabulayo aabihii ummadow ma dhahdiino